Maxaa uga qorshaysan Somaliland weerarada Xuutiyiinta ee badda cas ee caqabada ku noqday ganacsiga adduunka? Xuutiyiinta waddanka Yemen ka dagaalama ayaa sheegay inay beegsadeen 4 markab oo isugu jira kuwa waxay ku tilmaameen markab dagaal oo Mareykanku leeyahay kuwaas ay la socdeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada badda ee gacanka cadameed agab dagaal oo ay sheegeen in loo waday Yuhuudda oo duqeymo joogto ah ku haya reer Falastiin. Kooxdan la safan Iiraan ayaa weeraray markab MC Drown iyo MC Ghana MV Yorktown oo ay weerarayeen burburiyaha Mareykanka. Afhayeenka militariga kooxdani ayaa Yaxya Sarre ayaa sheegay khudbad laga sii daayay telefishinka militariga Mareykanka ayaa uu sheegay inay burburiyeen gantaalada lidka maraakiibta ee marayay gacanka cadameed kaasi ay soo rideen Xuutiyiintu waxaana la baahiyay inuu beegsaday markabka MV Yorktown. Mana jiraan wax dhaawac ah ama khasaare oo soo gaadhay markabka isbahaysiga ama maraakiibta ganacsiga ee shilkan ayaa ku daray taliska dhexe ee Mareykanku. Weerarada bilaha ah ee kooxda Xuutiyiinta ee badda cas ayaa hakadgeliyay maraakiibta caalamiga ah taasi oo ku qasabtay shirkadaha inay dib u maraan safarro dhaadheer oo qaali ah oo ay ku marayaan Koonfur Afrika waxaana kicisay cabsi laga qabo in dagaalka Israa'iil iyo Xamaas uu ku faafo si uu khalkhal u geliyo xasilloonida guud ee Bariga Dhexe. Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa qaadaya duqeymo ka dhana kooxda Xuutiyiinta si ay uga jawaabaan weerarada maraakiibta badda cas. Weeraradani ka dhacaya ayaa goobaha muhiimka ah oo marayka ganacsiga adduunka waxaana ay khatar ku tahay isu socodka ganacsiga adduunka. Haddaba maxaa Somaliland uga qorshaysan khatarta cusub ee soo food saartay amase ka soo cusboonaatay badda cas? Yaxya Muuse Ibraahim, Nairobi, warbaahinta TV, magaalada Hargeysa.